taalo maaha 5 taalo in loo dhisan u baahnaa farmaajana u sheeg hadaa aragto taalada asaga gacantiisa noogu dhiso sababta asaga waxa soo ma dhicin eedo horna waa diiwaan gobol lagu soo jeedin jiray inaan MOU-ga wax ka saxday haddii maxkamaddu ay go'aan diidma ah oo Soomaaliya ka dham ah ay soo saarto saameynta laga kulmiyo ma insha Allah ma soo saaraysa mid Soomaaliya oo saalixay soo saaraysa waxa dhahdaa MOU-gaagii lagu eedeeyaa lagu baxsaday ay Soomaalina ku baxsatay soo Soomaaliya dhan ay ku dabaaldegta maahan taasi miyaan loo odhan karin dhinac bad adiga laftaada dictator ka tahay oo go'aamadii kaliya ku gaaraysa xisbigii dadka loo iibto kula caawiyo oo kula shaqeeyo kula hogaamiyo ma ogol waa ka hadda madaxweyne farmaajo shalay wuxuuna lahaa anti Ethiopian hay Ethiopian ka soo horjeeda Kenya base oo markuu doorashada galay maanta wuxuu leeyahay Ethiopia xalaal oo fiican abay waa brother Kenya xun oo qofka Soomaaliya oo isbedelay hadda yaa ku darsanaya qof hore gadaal u socda adigana in aad la socoto dawladda Imaaraadka ayaa lagu weeday ma jirta arrintaas baaruuda wax qarxiya jira moogtaa marka ugu dambeeya qarxinaya ikraam marka waxa laga yaabaa wixii dambiye soo dhacay oo dhan si qarxinaysay inay ayada tahay oo ay ku qarxday ragga hadda talada haya Somaliland marka laga hadlayo haddii Somaliland jamhuuriyad iskeed u madax bannaan ay noqoto maxaa dhibaatay Soomaaliya ku haysa caqabad kow iyo laba la oran karo oo dhibaato soo gaaraysa miyay jirtaa Muqdisho duu raray asaga inuu mas'uuliyadda qaado ila anaa raray hadduu san rarayna oo dhaho inuu soo celiyo asaa laga rabaa oo san dhin ciidankaas aniga ma rarin caddayn waxay u tahay weli in farmaajo ammaan gacanta ku hayso waa sax waxyaabaha ugu cajiibka badnaa ee dhacay waxa ka mid ah inay dadka codeynayay wajiyada qarsadeen qaar ka midii inay socodkoodii bedeleen oo iyagoo dad caadi ah iska dhigeen inay jiism yihiin arrimahaasi saameyn intee leeg bay ku leedahay doorashada guud ee Soomaaliya waxaan u maleynayaa waxaad tilmaamaysa hawiyaatiin hawiye inta ugu badan 90% laakiin dad kalena way ku jiraan waa hawiye ah laakiin waxa ii muuqda markuu asaga meesha ka soo baxay kabacdiya madaxweynayaasha la weeraray kabacdiya Muqdisho dagaal ka dhacay kabacdiya asagii anagoo mudaharadeena la weeraray kabacdiya ikraan keeskeeda soo baxay dad minis waxa waayay meesha asagu wuxuu ka ahaa nin oo shaqada wax ka fulay laakiin shaqada dadka wadaa waa sii wadeen shaqadii waa sii socotaa hawshii ma sii istaagin khayre iyo farmaajo kaliya ma aha dalkan wixii dhibaatooyin ka soo dhaco dhanba Imaaraadka iyo Qatar iyo Sacuudiga way heshiiyeen heshiiskoodaasi Soomaalidu way u kala dheereyn jirtay wadamadaasi ma laga yaabaa idinkuna inaad gudaha ka heshiisaan maadaama iyagu heshiiyeen Turkigu waa dawlad strategic interest ku socota dad badan Soomaaliyeed oo ka xumaa waxay ku qaldan waxay u maleeyaan inay walaaltinimo iyo islaamnimo iyo ehelnimo Turki wax daraaf gareynaya maaha inta anaga carabta nooga dhow anigu waxaan aaminsanahay dawladda galmudug inay tahay dawladda la aqoonsan yahay sida sharcigaana ku dhisan waxaa qalada in awood kale